xaflad ballaaran oo lagu maamuusayo xuska sanad guurada 52 ee ka soo wareegatay markii ay xoroobeen gobolada koonfureed ee Soomaaliya sidoo kalena ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ayaa xalay si weyn looga xusay caasimadda waddanka Zambia ee Lusaka. xuskan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed ayaa waxaa sidoo kale xafladan goobjoog ka ahaa odayaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia waxaana intii ay xafladu socotay si wadaniyadii ku jirta la isu xusuusiyay sharafta iyo qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo qarannimadu. sidoo kale waxaa xafladan dhanka khadka telefoonka uga soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee dawladda badbaado qaran oo iyaguna xalay xuskan la mid ah uga qayb galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna dhamaantood ku amaaneen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia sida qiimaha leh ee ay isugu taageen xuska maalinta xorriyadda Soomaaliya. munaasabadu intii ay socotay waxaa goobta hadallo qiimo leh ka jeediyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia waxaana hadalladoodii ka mid ahaa markii calanka la saaray maalintaas oo ah maalintii ay isku darsameen labada gobol oo Soomaaliya sida Somaliland iyo koonfurta مسؤوليتي إنكم سؤال اسم الله إن أتكفل كذا إذا كان ذلك كذا. وحيكون ما كرتا إن الحبرتان. وحيكون ما كرتا إن الدلك نتشعلتان. وحيكون ما كرتا إن الكفر كذا إذا كنا في المستقبل بديتو. هذا الرجال وحيعاد من العينية للرجال تطبيق بدل كل شيء معناته إنه خالصا هذا الصومال هو خالصا تاريخه والتاريخ على الصومال الساعي بس هناك نحن كوفي نوري في سياق قوي نحن كي أي عالم كان واحد يجتها جاي كونفورت الصومالية والدولنشري ذلك صومال إيطاليا صوماليا واحد مسكسر على ما الدين كده مسكسر يدك ضد هجامية كأخوك ويحب السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنقات بيئات سبوك فأحسن هاي عاوزين نكسر قدامنا. نبدو ردي الصومالية لحدا كي على كي لقاعتي. وآدي قالي وأحاس جاي وشيء من يجوريه وحن جعل لها في الله إنه أنا بقول كي مسافة أما كل اللي يمر عوضة إن بدها الصوماليات مر عوضة كل منها وحن جاي يعني إنه سأوسي ودنا أوش عن ودنا وهاي ميت أهدو قطدر أولي يتسوس عدي بدها الصوماليات وحي هاي قوي فوري xoolahooda dhiigooda dadnimadooda u furay ugu xorma ku hadli karo dimuqraasiyada ku qabatay 9 sano ka bacdi wadankii wuxuu isku bedelay waxa qabsaday niman military ah maalintaas qorigii aan qaadanay waa ilaa maanta ku jiraa dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxaa hal mar si qiira ku jirto ay ugu istaageen calanka Soomaaliya iyagoo qaadaya heesa wadaniya سعيد موسى ظاهر تي في يونيفرسال عاصمة ودن Zambia Lusaka.